soddon sano ayaa ka soo wareegay markii ay Soomaaliland xornimadeeda dib ula soo noqotay 18 May sanadii 1990. soddonka sano maxaa Soomaaliland u qabsoomay maxaan u qabsoomin dhinacyada nabadgelyada, horumarka, dimuqraadiyadda, adeegyada kaabayaasha dhaqaale iyo xiriirka wadamada deriska iyo caalamka. ilaa muddadaas mar la yara heshiiyo, mar wax la yara qaboojiyo, wax ma la yara toosiyo, si walba ha ahaatee waa kii inqilaabkii 1969 dhacay ee afweena marorsaday. horta halkaa ayaa horta dawlad dimuqraatiya oo ummad dooratay ugu dambeysay dalka Soomaaliya. waxay la tahay kow inaynu odayaal arrintii dhaqankii odayaasha aqalka waxaanu ugu talagalay inuu dhaqanka iyo reeraha iyo diinta inaga qaabilo. ka aqalka in la yaro culo oo inoo xoojiyo arrinta dhaqankee inaga baahday malka Suudaaniyada kala daadatay inay gacanta ku qabtaan oo ay dariiqooda qaataan inagoo abaal ku qabna inaynu intii aynu ku soo gudubnay haddii bidmaayo ta xisbiyada iyo ta dimuqraadiyaddana dawlad tirada canshuur ba qaadi maayo amba canshuurtay qaada ay tahay mid aan la qaadi amba aan la bixin maanta haddaan qaado mesela soo qaadno waxa loo yaqaano interest rate-ka income tax-ka markaynu saddex dawladood ay nagu xeeranayno markaynu eegno Djibouti markaynu eegno Ethiopia markaynu eegno Kenya waxay u dhaxeeyaan 30 ilaa iyo 35%. income tax-ka waa dawladaha dhisan in ictiraaf raadinayeen waxba raadinayeen safaarada dibadeed de wax walba haysta. Soomaaliland oo ku taala mandiqad xasaasiya dhibaatooyin badan ay ka jiraan beesha caalamkana aan muddadaasi 30 sano ka helin aqoonsi buuxa maxaa ka dhigay inay noqoto qorax ka soo ifbaxday mandiqada Geeska Afrika kana hirgaleen doorashooyin hal cod iyo hal qof oo xor iyo xalaal kuna naaloonaysa nabad. badda casba inagu wareegsan kuwa aynu isna inagu wareegsan gobolkiyo gobolada qiiqiyo gobolada ugu dambeeya ee ku haray ay inagu wareegsan faqri baa inagu wareegsan istijid baa inagu wareegsan inagu ogaawo dawladaha xataa waxa isku wareegsan waxay haystaan kursi bay ku fadhiyaan cod bay haystaan meel bay ka buuxaan inuu jira xisbi yiraahda war wax walba waxa haysta private-kii waxaan sameyn lahaa banka wajaalaan mataqaana askartayda inta uu yeedho inta ilaalin saacad ku yaan inta kale ayaan ku biiray ina ciyaal barigii waxaan garanayaa waxay ahayd baan maraynaa deena yar baan ahaa fisid baan loo geeyay baashi waxaan ku raahdaa wajaale يعني بورا سريانه أنت اللي لاقي هنا مليني أيام مركا مشروعي وجهه وعقف تيسي ودد كيسي وعيسي وطا أيام تقنا شري مركا أمد إسأه أيانونا مركا واحد دولة دليل لا هي أمد ربع يلا ناس وحيد أمد ولا تشري دولة دي بقى يلا ناس هو ما ملكي بقى إنه هيسا markaa waxaan nahaa dhawaan ka fila telefishinka qaranka Soomaaliland barnaamijyada taxana oo ku la faguri doono Soomaaliland iyo 30 sano iyadoo barnaamijka kawaadna marti ay noogu yihiin aqoon-yahanada kala ah Dr. Marwa Adna Aadan, Dr. Maxamed Cismaan Fadal iyo Dr. Maxamed Cabdi Daawud.